dowladda UK ee dalka Ingiriiska ayaa u sheegtay dhigeeda Norway in ay joojiso laba wajiilanimada ay ku wajahayso muranka Soomaaliya iyo Kenya. Sirdoonka Britain ayaa ku booriyay Norway in ay joojiyaan la shaqaynta Kenya, halka ay dhinaca kalena taageerayaan dowladda Soomaaliya si ay uga faa'iideystaan shidaalka Soomaaliya. Waxaa sidaas qoray wargeyska African Intelligence. Wargeyska ayaa sheegay in ay diblomaasiyiin Norwejian ah ay dhowaan la kulmeen sirdoonka Britain ee M16, kuwaas oo ku booriyay Norway ay joojiso siyaasadda laba wajiilanimada ah ee ay kaga faa'iideysanayso muranka ka dhex xaaloosan Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka xuduudaha badda. Ingiriiska ayaa ka mid ah dhowrka dal ee reer galbeedka ah ee taageera Soomaaliya marka ay noqoto muranka badda, sida ay qortay warbaahinta lagu daabaco qoraalada cilmiga ku dhisan ee The Conversation ee dalka Australia. The Conversation ayaa sidoo kale sheegay in Norway ay taageerayso Soomaaliya sababo la xiriira in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu haysto dhalashada Norway, iyadoo xaqiiqadu ah in Kenya ay hore u ciyaarsiisay shirkadda shidaalka ee Norway. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in heshiiska isfahamka ee kale Soomaaliya iyo Kenya uu hore u saxeexay wasiirka iskaashiga Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse ay diideen baarlamaanka Soomaaliya oo ahaa mid uu soo diyaariyay danjiraha geeriyooday ee Norway Hansen Wilhelm. Maxamed Cabdileere, Telefishinka Somali News, magaalada Hargeysa.